amaankii qaramada midoobay ayaa ka hadlay isla mar ahaantaasina si xoogan u cambaaray qaraxii ay kooxda al-shabaab ka geysatay magaalada muqdisho 29 Oktoobar sanadkii 2022 kaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 120 qof in ka badan 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in ay aasdan uga xun yihiin qaraxyadaasi isla markaasina ay taasi u dirayaan eeradii dadkii ku dhintay iyo waliba shacabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyagoo noo rajeeyay caafimaad degdeg ah kuwii ku dhaawacmay. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay dib u xoojinayaan in argagixisada nooc kastoo ay tahay iyo muuqaal kastoo ay tahay ay ka dhigan tahay mid ka mid ah khataraha ugu daran ee nabadda iyo ammaanka caalamkaba. waxay soo dhaweynayaan dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya oo taageero ka helaya howlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS. waxay kaga hortagayaan khatarta al-shabaab waxayna ku boorinayaan madaxda Soomaaliya in ay isla kaashadaan la dagaalanka argagixisada ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay golaha ammaanka Talaadadii la soo dhaafay. bayaanka ayaa intaasi ku daray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay hoosta ka xariiqayaan baahida loo qabo in lala xisaabtamo dambiilayaasha abaabulaya iyo maalgadayaasha falkaasi argagixisanimada ee foosha xun lana horkeena sharciga. waxayna ku boorinayaan dhammaan dowladda si waafaqsan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah iyo go'aanada golaha ammaanka ee khuseeya inay si firfircoon ula shaqeeyaan dhammaan hay'adaha khusaysa arrintani ayaa lagu yiri. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in la xaliyo guulaha amni laga gaadhay dalka Soomaaliya waxayna ku dhiirigeliyeen dowladda iyo xubnaha ka inay kordhiyaan taageerada ay siinayaan ATMIS si ay u suurta gashay inay si hufan u gadato u gudato waajibaadkeeda iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee Soomaaliya si loo taageero hirgelinta qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay xoojinayaan qadarinta ay u hayaan gobonimada madaxbannaanida siyaasadeed midnimada dhuleed iyo midnimada Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay banaankaasi ka soo baxay qaramada midoobay golaha ammaanka. Yaxya Muuse Ibrahim Yaxya Nairobi wararka telefishinka caalamiga Arog TV Hargeysa.